madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar ayaa maanta sikadiisa ku soo galay degmo ganacsiyeedka Wajaale dhinaca Somaliland isagoo ay wehelinayaan wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar ayaa joogay suuqyada Wajaale muddo ka yar saacad isagoo ka adeeganayay Mustafa Cagjar wafdigan uu hogaaminayay markii ay dhameysteen adeegoodii ayaa waxay dib ugu laabteen degmada Wajaale dhinaca Itoobiya. socdaalkani madaxweynaha ayaa kadis ku noqday bulshada ku dhaqan degmada Wajaale indhaha ugu qabteen madaxweynaha dowlad deegaanka. kamida bulshada ku dhaqan degmada Wajaale ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay imaashaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo wafdigii uu hogaaminayay. Wajaale maanta soo galay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar oo wata ciidankiisii wuxuuna ka soo tallaabay xadhigga u dhexeeya labada dowladood waxaana si caadi ah looga qaaday xadhigga. madaxweynaha uu ka adeeganayay magaalada gudaheeda isagoo meheradaha qaar ka mida kale wax ka iibsanayay. laakiin la yaab kale wax noqotay waxa weeye madaxweynaha oo watay staafkiisii balse maamulkii degmo gobol iyo heer qaranba cid la socotay aanay jirin. waa arrin ka fajicisay shacbiga degmada Wajaale. waxaan u malaynayaa arrintaasi inay tahay arrin mas'uuliyad darro ah oo ay la yimaadeen maamulka degmada Wajaale ilaa heer gobol. arrin ay la yimaadeen baa weeyaan arrimaha noocaas oo kalena waxay wax u dhimayaan meeqaamka dalka ayay wax u dhimayaan. inuu madaxweyne dalka intuu soo galo isagoo ciidankiisii wata cid la socota aanay jirin waa arrin nusqaan inagu ah jirta. laakiin arrintaas soo gelitaankaasi uu soo galay madaxweynaha dowlad deegaanka laba dowladood oo walaalaha baynu nahay xidhiidh badan inaga dhexeeyo ku ganacsi ku siyaasadeed nooc walba inaga dhexeeya ayaynu nahay. laakiin waxa weeyaan milkiheedii iyo miisaankeedii iyo nidaamkii dowladnimaba meesha kan muuqanin. laarta yaa babiila noqotay anigoo meel tiir dhakhtarkii uu baaban madaxweynihii dhanaan la kulmo waa ban yaaba horta yaa bay ku noqotay arrinta kadiskee hoos waxa looba laga wanaagsan aynu jaarnahay xidhiidh badan inaga dhaxeeyo xidhiidh ganacsi baa inaga dhaxeeya. Wajaale waa magaalo ganacsiyeed intaas oo qowmiyadood wax naga iibsada ilaha kaliya aynu hayna way dadka Itoobiya nooga imanaya. runtii madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa inuu magaalada soo maro inuu soo booqdo inta aad baan u soo dhaweynaynaa. wallahi kama sheekan karo wax ka iibsaday laakiin in macnaha borotokoolka in yaroo borotokoolka uu baqaldanaa baan aaminsanahay laakiin waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha. arrintaasi kolley waa arrin dawladda wax u dhimaysa waxaana lagala xisaabtami doonaa baan malaynayaa maamulka magaalada iyo ciidamadii u xil saarnaa ilaalinta dalka. waxa uu qofka muwaadinkii qaadan kara ma maya wax ciidan sharci darro iskaga soo tallaaba oon halkaa lagu joojin waxay tilmaamaysaa dawlad la'aan. taasina ma aha mid uu qaadan karo qofka muwaadinka.